Assalaamu calaykum walaalay qaaliga ah waa idin salaamay meel kasta adduunka joogtiin waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtiin waa walaashiin Hinda kanalka igala socotiin waa Simply Hinda maanta part 2 waaye cilaan barashada xarfaha iyo shaqalada markaad waa kasta koobintaas ama koobinta afka furan iyadoo weyn iyadoo yar lagu bilaabanayo marka haddii ay kala go'o kareemka kale ama cilaanka ama daawadooyinka waxa ku marinaysid ku celcelisa u qurxanaato way isla sinmaysaa marka dambe insha Allah marka ayadoo haddana kor u jeedo oo xogaa yarna kan ka yar marka kadib waxaa jirta siyaabooyin badan oo loo buuxiyo hada kanoo kale waxaa ku celinaysaa siduu yahay ma aragtay la ku soo wareejinaya haddana inta isagoo eg la dhex gelinaysaa ilaa inta ka dhamaysid marba marka si dambayso sii yaraana kana saas oo kale mid kalena way jirtaa hadda hal mar wada dhamay karin dhex ku istaaji haddana dhinac kale ka soo wad saar u dhahayba hadduu kaaga go'o ama uu kaa kala yaraado meelna khafiif ka noqoto meelna furfuur ka noqoto ku celceli kana saana isagana yariiskan saana loogu buuxi karaa inta isla faana ooleenayo haddana xarafka afraad waaye waa 3 camal oo la weyneeyay marna kor u jeedinaysaa marna hoos haddii aad rabtid dhinaca saa hore u sheegay bacajaladii hore aan soo sheegay dhinac kale haddana ka soo wadi ama dhinacana ka soo wadi aan waxaan diidaa waqtiga inuu idinku sii dheeraado marka mid ka aragtid ama xarafka ama shaqalka aragtid ku dhibaayo marba meel u wareeji marba meel marka dambe gacantaada way la qabsanaysaa marka asagana saana loo buuxi karaa marka haddana cambaha badan dadku ugu dhibaa ku adeegyaa aad ugu adeegyaa qaarkood laakiin waxay ku xiran tahay ugu celceliso isa ugu fikirto saa usoo bilaad camba qarofo waa adeeg wadna camal oo saas wax yar loo qaloociyo waa asagana siyaabooyin badan oo lagu buuxiyaa jiraan hadaarti dhibcaha ku buuxi kartaa dhibcaha ugu fudud qofkana markay bilowday waxa la dhahaa dhibcaha isugu roonaato wax kasta nashqad kasta suubinaysa dhibcale marka dambe waxa maskaxdeeda soo gali doono fikiro cusub iyo siyaabooyin cusub oo waxa lagu buuxiyo insha Allah intan waa ka bagi doontiin boo ku arki doontiin ayagoo tir badan marka haddana waxa waaye 3 oo waxa loo yeelo waaye af labaad adiga 3 marka saas u soo qabatid hal mar marka dhexda ka wixisid marka saddexaad waa saas u gidirto inta maya mid kale af yar oo kale u bixi af yar oo kale marka u bixid ayadana qurux hada waa weyn tahay saa u aragtiina u yeelaysaas marka saan waa laga sii yareyn karaa idinka arki doontiin dhexdana waa kaas idan badan loo buuxiyaa kuuskaasna marna gudaha la geliyaa marna banaanka loo soo jeediyaa marba si waaye marka haddana waxa waaye xarafasagana xarfaha kamid waana xaraf fudud hore u soo aragnay sida la suubinayo laakiin shaqala loo yeelaya marka insha Allah waxaan rajeynayaa inuusan maanta cashirkiisa idinku adkaanin gabdhaha groupka ku jira wada
khaasatan inta aanan weli soo suubinin kii horey. waa xarafkii dheeraad saa xasuusatiin asagoo marba meel loo jeedinayo waaye. marka hadda bokiskana maxaa la dhahaa asiisi geesgees loogu buuxinaa. marka saan xarfahan meel ku buuxinaysid waxay ku qurxoon yihiin markaa geesgees u gelinaysid ama geesgees ugu buuxinaysid. haddaa dhahdo waa wada sima xoogaa yar ma qurxanaanayo. bokiskana haddana siyaabooyin badan oo kale wuxuu leeyahay asagana lagu buuxiyo. labada ugu fududna waxaa waaye inaad mar dhibca aad geliso marna aad buuxiso si isdhaaf bacda aray ku jirto waxaase waxay la xoog ugu soo baxayso iyadoo go-an. marka insha Allah hadda kadib videoyada waxaa idiin soo kor saari doonaa nashiido. waxaa yeelay sharaxaada intaan ka badan waxaan u maleynayay inay usii baahantahay sharaxaad badan. yani sharaxidda cashirkan ka wadaa maadaama hadda basic dhan meesha dhan oo cilaanka u ku fadhiisanaya ama cilaanka laga bilaabay dhanbo aa idiin soo bilaabay. kadib hadda kanaan bilaabna suuqba kan markaan kana waxaa waaye ul waaye ul laakiin oo qalqaloocan waaye. qalqaloocaas la gelinayo sidaa ka dambeyso quruxuu noqona. haddaa kaligeed iska istaajiso oo dhahdo oo caleemanaan ka dab xariirinaa saas uma qurxanaanayso. laakiin markuu qalqaloocan yar ku jiro wax khatar kusoo baxaysa hadhow oo caleeman ku jirtid. caleemaha lagu daraayana waa kana dartana idinku xijinaya. caleemiya marka iyagana dhowr nooc usii kala baxaan ayagoo yaryar ayagoo waaweyn ayagoo la buuxinayo ayagoo sidooda lagu dhaafayo ayagoo marmar intaa buuxiso haddana kor le usii bixinayso wax kaloo kusoo baxaa. fiiraada waa kana tiirista meesha tiilasaan noqonaysa isdhahay. waxaa le asaga caleemahan yarka waxaa le badanaa lagu toosiyaabo afka oo bacda. marka waxaan dhahayaa hadaad ahayd mar haddii ay gacantaada eeba qabato bacda oona cashirka ugu horeysana aad soo suubiso kan labaadna aad suubiso bes waa hadda kadib waxaa le loo baahnanaya inaa aragtid saan u suubinayo bes. haddii ahaato shaqal cusub haddii ahaato xaraf cusub marba waxaa waaye dad kala soo waxaabatii maasha Allah gabdho hami u haayo oo rabaan kulligood diyaar u inay bartaan. insha Allahna waa baranaysiin. marka cashirkan intuu noogu egyahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.